horta waxaan arki jirnay weefta Soomaalida oo 6 saac kadib warqada soo baxay hadda Mareykanka waxa 6 saac ay soo saareen si guud markaa u fiiriso dawladdu xaq u leedahay dawlad kale inay tiraan waxa ka joojiyo socdaalka guud ahaan laba wadan waa dhig karaa xiriirkooda dooxmaad iyo imaan kartida kuma imaanayo wadamo waxaa jiro doorashooyin ku xadgudbo dimuqraadiyo ku dheela ama ayba ka jirinba oo aan lagu soo rogin haddii aniga marka dan igu jirto kuma soo rogayo haddaan dantayda ka waayana waxaa la waa kugu soo rogay horta marka si guud loo fiiriyo awoodda ciidan iyo dhaqaale ee Mareykanka keenayso ma aha wax sharciyad laba dhinac ay ku heshiiyeen ama caalamiya oo jiro ma aha ta kale haddii awooddiisa soo isticmaalo marka fiiso ma aha Mareykanka kaliya laakiin inta xulafada la ahna kuma siinayaan fiiso waxaa Mareykanka oo ku koobay marka asoo ciqaab uga wado waa jirtaa in doorasho lagu xadgudbay in la boobay in dimuqraadiyo laga hortagay sida caalamka uga dhacday anankana waa dhacday waa u baahnayn in la ka joojiyo khaladkaas ama daas ka sax weyn xataa in la ka sax waa wax ma karto oo qofka oo dhibaatada loo geystay meesha ugu dhaw oo tabar uu ka raadi karo dadkan cunaqabataynta lagu soo rogay la fiisa laga joojiyay ama dadka dambiga naga galay waa dad geelay camal ma u baahna fiisa Mareykan uma basooyo Mareykan waxa laga yaabaa mararka shirar caalami ay ka dhacayaan Mareykanka oo kale asoo mas'uul dawladeed ah مثلا inuu madaxweyne ama ra'iisul wasaare laga dhigay ama wasiir arrimo dibadeed in la yiraahdo Mareykan ma imaan kartid iyo wadamo kale oo midowga Yurub oo kale in wax Mareykan qaatiguna qaadanaya taas marka waxay dhimay awoodiisi xafiiska oo ka tirsanay inuu ka qayb gali karo shirarka caalamiga dhib u keenay laakiin dad badan ay ku dhacayso oo waxa jira qaarkood baasaboor ma qabaan maamul goboleedyada qaar oo baasaboor ajnabi ma qabo waxa laga yaabaa dawladaha qaar inay u hoggaansamin sida Turkiga oo kale oo Turkiga iska aaday Turkiga meel ka dheer ma tagaan marka wax weyn oo dhinacaas ma saameynayso waxa la filaa marka inay ku xigto step labaad oo ah hantidiisa in la furus gareeyo qofka taasa marka waxay keenay bangiyada iyagoo danahooda fiirsanaya bangiyo badan inay xayiraan iyaga iyo qoysaskooda ama dadka shirkadaha ay leeyihiin xataa waa ka xirmay waana ka fikireen waxa soo kale ay ma karaan marka isku qoraan badana madaxda hantidooda ilmay ku qoraan ama nin wakiil uga shirkad laakiin waxay saameeyaan xataa hadii shirkadaas lagu ogaado inuu saami ku leeyahay dadka saamiyada kale ku lahayo dhanba waa ka xirmay si Dubai ugu dhacday rag Soomaali oo la saaray xanibaad shirkado hore ay u dhacday in dadka kale shirkadaas ka tirsanay waxay keenayaan marka in shirkadihii dadka kula jiray iyaga magaca ugu la jiray hadii xubnihi kale ay ogaadaan inay hebel hantidan ma lahayn hebel u haya bari waa ugu dhici kartaa sidaas oo kale dib marka loola wada naqdo laakiin guud ahaan hadda inta xalay weeftada ku qoreed hadaan tilaabo labaad la qaadi doonin wax weyn ma sameynayso dadka qaar waa sameeyay oo ama ilmooda xagga jiraan ama ku xiraay wadamada Yurub ama galbeedka oo kaligood inta soo shaqo tagay cidina gadaal ay jirto in hadii lacag la sii jiro laga gooyo waxbarasho lacag la'aan hadii helayeen dhibaatadaas waa u keeni kartaa laakiin dadka qaar ma saameyn karto oo dad oo saraakiil ciidan oo kala jirto oo baasaboor balahayn dowladdan Kenya Turkiga iska tagi jiray siyaasiyiin waxa jirto oo xiriirkooda xaggaba ayna gaarsiisneen in caalamka dhan xiriir la sameeyaan marka hore networkooda oo ku ekay meel yar marka wax weyn stepka labaad la sugo waaye doorashadan in lagu xadgudbay waa muuqataa qorshaha ka dambeeya xataa oo dadka soo bixi doona inay ka hortagayaan waa dhici kartaa qorshahaas marka kama qarsano caalamka waxa oo Soomaalidu ay u jeedo qofkii qasoo u qortay inay ugu hirgasho dadkana shacabkuna iyagu horta mucaaradka waxay noqdeen principal nin wata fog oo mabda'aasan wata ku dagaalamayo ma hayno nin walba oo ka bursay adiga kursiga ku fadhiiso adiga saas naqato xalaga hal iyo laba inay xogaa fikir yar oo ka balaaran oo Soomaalinimo iyo dadkan sida loo badbaadiyaa inay ka fikirayaan dhinaca kale wadanka abaara ka jira iyo colaado waxa laga yaabaa inay akhristaan madaxdan oo buugga Machiavelli oo qoray The Prince oo abaarahan oo dhanba inaan la danaynba si dadku ay ugu mashquulaan hungurigiisa ama dadku waa soo wada qaxay beledka la yimid baadiya rafaada jiro inta kalena qabiilada dhaxdooda si ula kaca in colaad joogta looga abuuro
dadka marka haddii abaar dhinac ka haysto colaada dhinac ka haysato barnaamijkaaga adiga kuu fulaa marka uma naxaysa haddii raashin lagu keeno xataa inaad gaarsiin qaab fiican political waa ku anfaca adiga marka political oo Machiavelli moral iyo damiir iyo waxaasoo dhan kuma jiraan seen aniga ku gaaraa waay marka in hadda abaaru dhacdo waqtiga doorashada waa principle ay ka faa'iideysan karaan waa danaynayaan in dadka laba madaxa la isugu geliyana waa dalbiga waxa ay mabaadi kale dadka hadaadan mashquul adiga ku mashquulnaa marka inta aniga mashquulnaa ayaa la isku mashquulnaa principle saasana waa jira emotional dadkina iska naqdeen shacabku waxay naqdeen sidii filimada ma ku aragtay masaymaaradan Kenya iyo duurjoog iska dudayso libaxa cunaa waraaba cunaa dawaca cunaa wabi hadii aadan yaxaasa cunaa dudkaas ay isaga jirtaa shacabku wuxuu iska naqday marka dhinac dawaca ka cunayso dhinac wadamadii dibadda ku cunaa dhinac waxa cunaa ajaanib kale wadamadii diriska dhaxdiisa tuugo abaar shacabku loogiisu iska naqday iska dudayso marka waxa wax bedeli karana waa shacabku inay dareemaan nolosha hadda meeqay mare saliida qaar waxay ahayd $18 ayaa hore kan weynka caagi 39 maray shalay boqolkiiba ka sare maray marka adduunyada sentiya laga qayliyaa dadkan marka iyagoo sagxada dhulka adiga waana saameynaa nolol maalmeedkeen taasaan ku mashquulayna baan siyaasadda ma xoog helnaa marka haddii lagu yiraahdo maanta wax lagu dalaca male oo 18 aad duqda u dhiibto ay suuqa adeeyo dambiisho faarqo ku timaayto war sunta intaas maray aadan hayn siyaasad xoog ma heshid culayska dadka waa lagu adkeynaa marka ciidamada waa loo isticmaalo ciidamada laftooda iyaga ah dhibanaha koowaad ma oga gurigiisi dhibanu ku yahay mushaarkiisu ilmaha haduu leeyahay haduu dhali doono wax muu taraa haduu xanuunsado qofka ugu horo dayacan asiga waa dadku markii agmana askariga maxabada iyo loo qabi jiray si fiican loo fiirimay marka asaga laftiisa khatar ku ah marka hadii shacabkiisa nacaan gurigana islaanti ka soo nacdo loona adeegsanayo maslaxadiisa mustaqbalka in dadka laga culaysiyo midna ku sheegay saraakiisha hadda hor socoto ciidamada oo daacad ah iyo siyaasiyiin badan oo daacad Machiavelli waa qabiya dadka aad daacad ku ah marmar dhulka la geeyo si kuwa kale daacad ku ah xataa ay u baqaan saraakiil badan oo dhalinyaro oo firfircoon dambi markay galaan ay ku fogaadaan dhulka la geeyna kuwa iyaga ka haray si cabsi u qabaan marka garansiya ma aha ina dawladda daacad u tahay inay dabaarad kuba inay kugu dhowrayso waa wax iska caabo hadda ma aha waa mabaadi adduunyada jirtay laakiin Soomaaliya aan lagu abalay gareyn Eritrea waa ku dhaqantay wadamo badan ku dhaqmeen saas waa Eritrea marka sinkar gadanayso passport document cadeynka waa laga qoraa qaybta dibadda waa ka xiran tahay messages ma qori kartid waxyaaba culays waa nagu soo socotaa arka lafteena hadda marno idaacadiin highly controlled naga doonaan telefonadeena khadadka dibadda waa laga jaro marka sida mabaadiida ay ku qoran tahay oo adduunka meel badan laga dhaqan galiyo laakiin anaka inuu cusubta kisto Soomaaliya iska geelay tahay xuduudaha ka gudbayso hadda kuwaas xuduudaha ka gudbaayadba in dawladdu jirto inay jiran iyo kalama jecleen marka dhibaatooyinkaas noocaas waa iska badan yihiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa in culayskan oo iska qaado laakiin ilaa bini aadamku isbedeshin leeyahay bedeli ma yahay haddaan shacabku oo asoo mucaarad iyo muxaafid iyo waxba fiirin oo maslaxadiisa fiirin shacabku oo qabiilada lagu kala qaybiyay haddaan hindhiso waxa leeyahay qabiilada ka wada war maxaa dhac reer hebel ma hindhisi jirin hindhisada bilowd war hindhisa sanbore ma laga miyeen dhalinyaradii marka xataa mar aad u doodayso xuquuqdooda ama wax u sheegayso waxay kula aadayaan waxa asiga la geliyay oo ah in maslaxadiis qof kasto u sheegay oo yiraahdo qabiilada ka wada bis hal ku dhagay naqata professor ma soo hadlaya qabiilada uga dan leeyahay marka waxaas loo haween lagama dhigto laakiin waaqica jiray kamid ah asiga waxa loo isticmaalayaa maslaxadiisa inuu ka hor yimaado mana ogo meel badan waa ka dhacday adduunkana waa gartay aan ugu dambeyn markii aan soo qaadano muddaxiyaadkan iska sii socdo oo weli hadda dalka doorasho u sanaadin Soomaaliya ma ka jirto hay'ad adag oo ka hortagta ku tumashada dastuurka oo awoodi karta waxna meel marin karta ما هي أداس مرة على بابي برلمان كمرة هراء وأود داس لهاي ولا جت تخلص وأود مالي أو صومر حتى ما بتجري لكن أنتوا جري أميد لقدي وحسوا هنا محكمة ده
dada aqoon ba u lahayn waa joogaan awood ay ku hadlaan male wax ay ku hayaan male hadda albaabadu iska xariir dadku waa isaga tageen inta maxkamadda aadilin meel kale aan ku dhamaysanaa leeyahay maxkamad dastuuriya lama sameyn guddigii oo waxaa la sameeyey mar adeeg garsoorka xubno waxay ku yimaadeen boosishanka ay joogaan gudoomiye maxkamadda 5 xubnood oo kale banaanka laakiin waa ogeed aqalka sare ay illi sharci darro waaye ururada bulshada ay yiraahdeen rayidka sharci darro waaye axsaabtii oo mucaaradkeeda iyaguna isbaaysigooda waxay sharci darro waaye waa iska kala tageen oo malaha iyaguna marka guddi adeeg garsoorna ma jiro maxkamad dastuuri ma jirto baarlamaan ma jiro marka intii baralas laga dhiga marka waxaa la yiri dadku ha hadlaano ama idaacadaha ka warramaan ama darbida ka qeyn dan aan ka leeyahay ma jirto waxa ii daran laba isku soo baxdo barnaamij waa la xabaday barnaamij kale la isku dayo odayaal yar lacag la siiyo waxa la yiri ka hortaga ee waxa tiraahay 28 Febraayo dhaca odayaal shaqo ku leeyahay uu kii abaabulay maaha tiiga maslaxadooda waxa u muuqato dadku waxay iska noqdeen for sale dad badan oo jidka mara dad fiirs meesha for sale uga taala sida badeecadii dukaamanka tiilo kale waa nin odayaho cid mas'uulka ama nin aqoon-yahana ama sarkaal laakiin waa beec si qof kasta birita baad sarkaal oo noqon kara hal ay gato bini aadamkuna haduu shay naqdo la gada karo ee damiir dadnimo ayna jirin dhib haysto haddii dadka u doodayo xuquuqdooda iyaga laga hor keenana dhib kala imaanay marka beediyaha waxaan idinkula waaninaa walaalay idaacadaha kale oo jiro ha ka caajisina in xuquuqda dadku ay leeyihiin aad ka hadashiin inaad dadka darsi ka siisiin dadka ma yaqaanin waxa xaq u leeyahay waxa ka baqan inuu ogaado qofku waxa ka riski badan kala kulmaysa waa qiyaasa laakiin dadka xaqooda nolosha maciishada caadiga waxaa xustaa هذا عبد الرشيد markii ugu horeysay khilaaf weyn ma dhaxmarin laakiin meesha ugu horeysay iskula dhaceen waxay sicirka sokorta kiilada waxa ma leeyahay 2 shilin iyo 2 kuub amal inay ahayd عبد الرشيد 2 kuub ku daray 2 kuub bis hada cad oo yeelay dadka baan u daray dadka xataa banaan baxay markaas kuwa waa dhaameen aqal ma aanu baaraba in laga tashado insaan leeyahay 2 kuub mise ugu dartay sokorta oo meesha ugu horeysay xogaa isku qabsadeen in laga naqday markii inta boqol ka badan lagu saaray shacabka qaylna male waa si dhimana ulaa lagu dhufana in hadana mid kale ku dhacay in mugda madaxa laga bajina soo jeedo dhimana ma aha markii hadalkii ina cid ku mucaaradayo ama aan muxaafid u ahay labaduba haday khalad leeyihiin waa in loo sheego shacabka aan kamid ah doo khalad leeyahay waa in ogaana khaladkeena marka xuquuqdeena waa hal weyn waxa nagu dhaco ina cid kale ku eedeyno ma ah wariye xaq u leeyahay culimadu xaq ay leedahay haweenku xaq ay leeyihiin dadka hadda is sharaxay xildhibaanada